السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادا قيبتي لباد ee sheekadii taxanaha ahayd ee boqortooyada dhurwaaga. kadib markii ay raxan dhurwaayaha wada socda ay soo gaadheen afaafkii hore ee godka ayuu diiriyey sidii meesha ka carar laakiin umay suurtoobin oo dhinac kasta way ka xigeen waanay soo dhawaadeen ilaa ay soo gaadheen dhinaca gudaha. xaaladda uu ku jiro diiriye baqdin arrinkiisu uu dhaafay oo waxa uu joogaa nafka samrin. dhurwaayadu way ku sii durkayaan marka kasii dambaysta isaguna dib ayuu uga sii baxayaa. markii uu xoogaa gudaha galay waxa uu dareemay inuu godku weyn yahay hase yeeshee iftiinkii yaraa ee dibadda laga helayay lama arkayo meel kastana uu xadaadsan lafo. ma qaylin karo oo hadalba kama soo baxaayo oo hinna warkeeda baddaa. haddii uu xoogaa joogay oo dhurwaagii waxa uu bilaabay inuu codad kala duwan sameeyo waana uu soo batay isaguna waxa uu ku dhuumanayaa meel gees ah oo afaafka hore ee godka u dhow. meesha godka ah waxay saldhig u tahay boqortooyo dhurwaagu leeyahay oo geygaas ka dhisan waxaana deganaaba boqorka dhurwaayada. habeenkaasna waxa uu lahaa shir weyn oo ay ka soo qayb galeen dhammaan waraabayaasha deegaanka ka dhowaa. kolkii roobku istaagay ayay dhammaantood isa soo tubeen afaafkii hore ee godka markaasay xayn kalena ka soo baxday godkii oo boqorkiina ku jiro. xilligaas diiriya waxa uu ku jiraa godka waanu dareemayaa inay bahla ka baxayaan balse ma ogaan karo in lagu jiro waayo mugdigiisa ayaa aad u darnaa. si saamiyana uma fadhiyo istaagna ma awoodo shiifna isaga warkiisa baddaa. habeenkaasna waxa uu ahaa mid aad u dheer. kadib wadahadal iyo doodo badan oo dhex maray dhurwaaga xilli uu waagii ku dhow yahay ayuu soo idlaaday shirkoodii. dhanka wiilka yaroo gacantooda ku jira faal ay dhigteen waxay ku arkeen haddii ay cunaan inay musiibo ku dhici doonto waxaanay isku afkarteen inaan la taaban lana koriyo islamarkaana iyaga ka mid ahaado. diiriya hadda ka hor dhurwaan wuu arag hase yeeshee wuxuu ku maqli jiray sheekooyin looga sheekayn jiray xilliga caweyska xoolaha marka lasoo xareeyo kadib. markii waagii baryeyna waxaa soo galay godkii koox dhurwaayaa boqorkiina ku jiro waxaanay soo ag istaageen meel diiriye ku dhow oo ay ku wada hadleen. markaas diiriya waxau isleeyahay goormay bahladan ku cunayaan laakiin waxay dheehanayaan dushiisa oo diihaal iyo gaajo badan ka muuqato. cabbaar markii la joogay ayuu boqorkii amray mid ka mid a adeegayaashiisa inuu geeyo meel ka mida godku ay biyo macaan ku jiraan. waxa uu soo dhaqaaqay dhinacii diiriye isna dib ayuu uga sii durkayaa. markii uu in cabbaara dul taagnaa dhurwaagii ayuu diiriya dareemay inuusan dhib la maaganayn. halkaas markii xaaladdu marayso ayuu dhurwaagii dhowr jeer madaxa u leexiyey dhinacii ay biyuhu ku jireen markaasna uu dhaqaaqay. diiriya waxa uu dareemay inuu leeyahay halkan kaalay laakiin wuu awoodi waayo oo baqdintii ugu darnayd baa haysaa isagoo gurguuranaya buuna aaday meeshii. hadda waxa ka ba'ay oonkii laakiin weli waxaa haya gaajo daran. cunto bini'aadanna meesha ma taalo dibaddana uma bixi karo oo afaafka hore godka waxaa jooga ilaalo xooggan. 2 maalmood haddii uu meeshii ku jiro biyo ma ahee wax kalena uusan afkiisa saarin ayaa galabgaab goor ay tahay waxa boqorkii loo keenay ugaadho dhowr xabba ah oo la soo dilay. markaas ayuu boqorkii amray in la siiyo wiil kala jooga beerka ugaadha waana qaydhin ciiddana lagama dhowrayo isagase waxaa haysa gaajo aad u daran. haddii ay xoogaag yaaleen waxa uu soo qaaday mid ka mid a oo ku bilaabay cunid. inkastoo uu yahay beer oo jilicsan yahay haddana waa qaydhin oo waxa uu leeyahay dhiig. hase ahaatee waxaasoo dhan waxa kaga daran gaajada haysa. qaybtii labaad ee sheekadeenii taxana ahayd intaas ayay ku eg tahay. fadlan subscribe saar channelkan lana soco qaybaha dambe.